daawadayaal waxaa la gaaray xilligii aadna la daawan lahaydeen national and international news. National and international news brought to you by Dora TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشينا شرفتا إيا قيمها له ملو البد عالم كأدنا قد داونيسان كسو دوادا national and international news أبين كان عاوة وأي تاريخ دو تاهي سيديد إيا طبانكا بيش شعبان السنة كوني أفر بخولي أفرتن إيا لحدة إيا هجرية إسلامكا لانا مد تضبا إيا طبانكا بيش جانوري السنة كلابدو كون إيا شن إلا باتنكا إيا ميلادية داوديال هبين كان عاوة وراركا ودن كان بريتن وحان كسو قادن دون وهورينتي شغالها وسارد عافماتك ودخاتيرته إيا لعبتها أي دولة ودن كان بريتن وقلاتي إن مركاسي لسيو مشاركودا ورنتي داد بدن إسويدينيان ودخاتيرته محي لعب هذا ما دام العق إنتاني لأيك لسينا يوم sidoo kale daawadayaal sida aad la socotaan wadankan Britain arimaha dhaqaalaha ayaa waxaad moodaa in runtii ay aad u sii adkaanayaan maadaama dhaqaalaha wadanku uusan settle down uusan weli ahayn wadanka Mareykanka maxaa keenay in caalamka uu domination ku noqdo ama uu caalamka inta badan meesha wax ka dhacda uu jecel yahay inuu number 1 u noqdo ciidamada markaas caalamka uu kala jooga waddanka Mareykanka waa intee ciidamada Ruushkana waa intee arimahaasi iyo warar kale aad xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena waddankan Britain iyo kuwa caalamka maadaama haatan ay saacadu tahay 10 habeenimo ee waqtiga waddankan Britain daawadayaal sida la socota mar waliba qeyrkay wanaaga ayaa wararkeena aan ku bilaabanay masjidkii madrasadii loo dhisayay wadaadkii indhaha la ay haatan gabagaba runtii sidii aan ugu talagalnay ay wax waliba ay haatan ay u socdaan ku talagalkeena ayaa waxa uu ahaa in wadaadka madrasadaasi loo dhiso ka hor bisha barakeysan ee Ramadan alxamdulillah way noo suurta gashay hawshii haatan waa gabagabo oo maanta wadaadka goobtaas dhisay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha xafida ajr xasanaad ilaha ka siiye wuxuu noo soo gudbiyay kalibyadii ugu dambeeyay ee masjidkaas oo runtii qofka arka uu aad runtii ugu farxayo waayo marka uu qofka bini aadanka uu dhimarka aysan indho uusan lahayn uusan awoodin waxyaabo badan runtii aad bay u adag tahay asxaabay in qofkaasi wuxuu doono uu markaas uu samaysto sidaas darteeda waxaan isku dayi doonaa haddii ay baraale uu ka noqdo in aan runtii ila wadaagtaan clipkani oo runtii aan qayb weyn aan ka qaadanay ee asxaabta ay ka qaateen dhismaha madrasadani yar ee runtii loo dhisayo caruurta quraanka ku barata madrasadani oo runtii aad dhibaato weyn ay kaga muuqatay markii madrasadani la bilaabayay madrasadan ay hore hoobiyo ugu dhacay oo runtii waxay ahayd tarniig aad ayay u baqdateeda kala xigta tan ugu daran waxay ahayd roobka oo madrasadani dusha si aad kaga soo galay waxaad la daawataan maadaama goobta xitaa haatan laga dhisayo dhistana runtii ay shaqadeeduna si hadii loo fiiriyo yar tahay marna ay adag tahay ayaan rabaa inaad ila wadaagtaan ila daawada clipkan oo runtii aad ku farxad danteen iyo xoolaha looda saaradeeda insha Allah barakallahu fiik tan moosay konton sanduwa xoolo halkan ugu keenay insha Allah boqol wixii noqoto factore insha Allah barakallahu fiikum waxaan u baxayaa banaanka insha Allah barakallahu fiik heerkii banaanka soo baxay insha Allah وهذا لما تبقى بارك الله
إن شاء الله بارك الله فيكم. هبتان ولد بارك الله يا رب madrasadana u jeedaan sidaasi ayaa runtii haatan dhiska loogu sameeya waayo dhaqaalo culus oo aan ugu dhisno dhagax aad buu adagaya dhulkaasina waa dhul aada u roob badan runtiina way adag tahay in aan markaasi laakiin aakhirka sidan ayay noqon doontaa hadduu abralka noqdo marka la dhamaystiro wey sida gurigaas uu dhisan yahay waad ujeedaan sidaas oo kale ayaa loo fargaasayaa oo la marin doona hadduu abral ka noqdo sida ayaa loogu sameynaya wadaadka hadduu abral ka noqdo ujeedaan maasha allah runtii waxay noqonaysaa goob qurux badan ardaydu ay qur-aanka ay ku bartaan insha allah lana soo afjari doono ka hor bisha barakaysan ee ramadaan hawsha haatan waa gabagabo guryaha sida ayaa loo sameeya waad ujeedaan sida ayaa loogu sameynaya hadduu abraal ka noqdo ilaahi subxaanahu watacaala ajir xasanaad ha idinka siiyo ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa kheyr iyo wanaag runtiina waa wax lagu farxo ahlu kheyrka sida ay markaasi ay kaga qayb galayaan ama ay kaga qayb galeen daawadayaal ilaahi subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa bisha barakaysan ee ramadaan inuu caafimaad iyo cimri dheer uu nagu gaarsiiyo shacbaan waa habeenkan caawa sidaad ujeedaan waa 18 oo 12 maalmood oo keliya ayaa bisha barakaysan ee ramadaan nooga dhiman dhowaan waxaynu bilaabi doonaa tabarucaadii aan gaarsiin lahayn dadka masaakiinta iyo fuqarada ee dhulkii ku nool taasi oo runtii aan inta badan asxaabteeda ahlu kheyrka ah aan hore aan u samayn jirnay aanna u samayn doono daawadayaal sidee doontaba ahaatee kheyrka iyo wanaagga aan noqono kuwii ku degdega oo markaasi insha allah aynu noqono dadku ilaahay subxaanahu watacaala uu u furo albaabyada loo yaqaano baabu sadaqa يوم يقوم الحساب هذا سبحانه وتعالى ورالو كنقضه داودين waxaan u gudbayaa dhanka wararka wadankan Britain sida la socotaan sanadihii aynu soo dhaafnay mudaharaadyo joogta ayaa wadankan Britain ka dhacayay oo shaqo ka fadhiisa wasaaradda caafimaadka nursery iyo dhaqaatiirta haba u badnaadaan dowladda ayaa waxa ay sheegeen in heshiisyo badan iyo dadaal badan oo la sameeyo lagu heshiiyey in dhaqaatiirta wadankan Britain mishaarka siiba kuwa professionka ah ee isbitaalada ka shaqeeya doctor communis full doctor markuu yahay lacagta sanad waliba uu qaadanayo la gaarsiiyo 120,000 oo poundka lacagta wadankan Britain waa 100,000 oo ku dhan 120,000 oo pound waa dhakhtarka markaasi dhakhtarka buuxa ee isbitaalada waaweyn ee wadankani dhakhaatiirta juniorka basiga markuu jaamacadda soo dhameeyo oo juniorka uu yahayna waxay ka bilaabayaan 36,616 waa junior doctorska ilaa iyo ay markaasi ay gaaraan 70,405 poundka lacagta wadankan Britain means dhakhtarka juniorka haddii wiilkaaga ama gabadhaada ay jaamacadda dhakhtarnimo ay soo dhamayso mishaarka ugu yar oo ay qaadan doonaan waxa weeye 33,616 pound oo lacagta wadankan Britain markuu muddo sii joogana waxa ay gaari doontaa ilaa 70,405 pound dowladda ayaa lacagahan kordhiska ay sameeyeen ayaa waxay doonayaan inay wax weyn ay ka bedelaan go'aamadii soo baxay sanadka markuu ahaa 2022 ilaa 2023 oo ay dowladda ay mishaarada ay ugu kordhinaysay dadka
ama shaqaalaha NHS-ta ee waddankani Britain. daawadayaal waxaan u gudbayaa dhanka wararka caalamka. sida aad la socotaan, caalamka sidiisa waa caalam ku dhisan awood dhanka militariga ah. sideedaba qofka laga xoog weyn yahay mar waliba waa loo awood sheegtaa. caalamka ayaa hore waxaa kaga jiray laba gaashaanbuur oo dhanka militariga caan u ah, oo ah gaashaanbuurta NATO iyo gaashaanbuurta Warsaw. gaashaanbuurta NATO waa tan ay markaasi ku heshiiyeen wadamada Yurubta galbeed. gaashaanbuurta NATO waxay ahaan jirtay wadamadii ku heshiiyey Yurubta bari oo haatan burburtay. gaashaanbuurta NATO ayaa haatan waxaad moodaa inay yara leecleecayso kadib markii dowladda waddanka Mareykanka uu Donald Trump go'aano adag uu ka soo saaray habka ay markaasi NATO ay ula dhaqmi doonaan. halkan waxaa nooga muuqda laba shax oo aad u qurux badan oo runtii ay wadamada caalamka ay la doonay inay ku kala ogaadaan awoodda militariga ee wadamada Mareykanka iyo waddanka Ruushka. ciidamada waddanka Mareykanka ayaa raba inaan ka bilaabo ugu horeyntii. ciidamada waddanka Mareykanka ee markaasi wadamada caalamka jooga, wadamada caalamka kuwa jooga ma aha kuwa diyaarka ah, kuwa caalamka jooga ayaa tiradooda waxa ay tahay 100 iyo wadamada total US force oo qaaradda in Europe haatan jooga ayaa waxa ay yihiin 114,000 oo ciidan ah. waxyaabaha keenay in Mareykanku uu aad u awood sheegto waxa weeye ciidamo badan ayaa qaaraddan Europe ka jooga. waxaan rabnaa sida ay wadamada qaaradda Europe ee ciidamada waddanka Mareykanka ay u dhex degan yihiin inaad wax ka ogaataan. waayo qofba haddaad aragtid in awood zaad isticmaalayo wax un baa jir. marka waxyaabaha muuqda ee wadamadan ka jira waxa weeye gaashaanbuurta NATO, ciidamada USA ee qaaraddan Europe iyo wadamada sida ay u kala degan yihiin. waxaan rabaa inaan ku hormaro waddanka loo yaqaano Portugal. waddanka Portugal ayaa ciidamada Mareykanka joogay aad u yar yihiin, ilaa 254 maraakiib markaas halkaas ugu xiran oo ay markaas maraakiibtooda ay ku waardiyeystaan. ciidankaas oo kali ayaa ka jooga. ciidamada Mareykanka ee waddankan Britain jooga ayaa tiradooda waxa ay tahay 10,180 oo ciidamada Mareykanka. 10,180 ciidan ayaa waddankani Britain ka jooga oo waa USA. waddanka Norway waxaa jooga 82 ciidamada waddanka Mareykanka. Netherlands ama Holland waxaa ka jooga 405 ciidamada waddanka Mareykanka Marineska. waddanka Belgium 1,119 ciidan ayaa ka jooga. France 85 ayaa ka jooga. Spain 3,253 ayaa ka jooga. halka waddanka Talyaaniga ay ka joogaan 12,319. ciidamada ugu tirada badan ee waddanka Mareykanka ee qaaradda Yurub waxa ay degan yihiin waddanka Jarmalka oo tirada waddankaasi joogta ay tahay 34,894 ciidamada militariga ee waddanka Mareykanka ee markaasi degan waddanka Jarmalka. maadaama Jarmalka looga guuleystay dagaalkii labaad ee caalamka ayaa keentay in Mareykanka uu dhulkaasi aad u degan yahay. Romania 140 oo kaliya, waddanka Greega 139, waddanka Turkiga ilaa 1,683 ciidamada waddanka Mareykanka ayaa joogta. okay, waddanka Ruushka. waddanka Ruushka ciidamadiisa ayaa waxa ay yihiin total militariga waddanka Ruushka 3,100,000 oo militariga. 3,100,000 oo ciidamada militariga. waxaa kaloo ay sheegeen in ciidamo 2 milyan ah ay qabaan ciidamadaas oo reserviska loo yaqaano oo markaasi ciidamada haddii loo baahdo la wacayo. okay, gaashaanbuurta NATO ciidankooda waa meeqa marka? ciidamada inta badan gaashaanbuurta NATO waa ciidamo runtii loo diyaariyey inay la dagaalaan waddanka Ruushka. waxaana lagu wareejiyey Ruushkii hore ee burburay
wadamadii bariga qaaradda Yurub loo yaqaano. ciidamada NATO tiradooda waxa way 918,500 wey. wadanka ugu tirada badan oo ciidankaasi ay joogaan waxa wadanka loo yaqaano Lithuania 169,000 ayaa joogta. Estonia 47, Latvia 55, 200,000 waxa ay joogaan wadanka loo yaqaano Poland. Slovakia waxaa jooga 19,000, Hungary 61,000, Romania 136,000, wadanka Bulgaria ayaa waxaa joogta 40,000. marka wadanka Mareykanka waxa keenay in ay awood military ay caalamka ay ula dhaqmaan waxa weeye tirada badnaanta ciidamadooda oo runtii aad u tir badan siiba 114,000 oo ciidan ayaa ka jooga. NATO idilna ciidanka ay qabaan waxa weeye 918,500. hadaa isbarbar dhigto marka ciidamada NATO oo idil ee qaaradda Yurub ee ciidamada Mareykanka ee NATO ku jira ama wada qaaradda Yurub jooga, ciidamada Mareykanka ayaa badan. hubkay haystaan ciidamada NATO iyo ciidamada Mareykanka Yurub degan, ciidamada Mareykanka Yurub degan ayaa hub badan. taas ayaa keentay in aysan ciidamada NATO aysan awood weyn aysan lahayn. marka taas ayaa keenaysa in wiilka yarka oo dhalinyarada oo Ukraine haysta ayaa wadamada qaaradda Yurub ilaa ay shalay maalmihii ugu dambeeyay waxa uu dhahay waa inaad ciidamadiina aad kordhisay, ciidamadiina waa inaad badisay, militariga waa in la xoojiyaa. waayo waxa uu dareemay in Mareykanka dhanka awoodda militariga qaaradda Yurub uu kaga xoog badan yahay gaashaanbuurta NATO. lacagihii tirada badnaa ee markaas ay dhiibayeen waxa doonaya inuu Mareykanka Donald Trump iyo dawladdiisa ay joojiyaan. waxa uu leeyahay Ruushka la socda in uu aakhirka mar uu nolosha kamid ah wadamada awood u yeelan doono. waayo ciidamadiisa ayaaba 3,100,000 ah, 2,000,000 reserve. isku darka ciidamada wadanka Ruushka ayaa waxa ay gaarayaan 5,100,000 oo ciidamo active ah. daawadayaal caalamka waa noocaas. caalamka aad u jeedaan habkaasi ayuu markaasi ay u nool yihiin. daawadayaal wararkeena habeenkan caawa ee wadankan Britain iyo caalamka halkaas ayaan ku soo afjaraya. daawadayaal mar waliba wararka waxaan ku soo afjarnaa khayrka iyo wanaagga. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ubadka Soomaaliyeed inuu xafido. ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmaha Soomaaliyeed meel kasta caalamka ay joogaan ilaahu u fududeeyo. sitimaankan maalinta birita bilaabanaya iskuullada waa ay xiran yihiin. waalidkan raba inaan in yar aan ku darsado. sitimaanka uu iskuulku u xiran yahay caruurta waxaa loogu talagalay 2 shay oo kaliya: inay nastaan iyo inay homeworkyadooda ama revisionka ay badiyaan. waayo maalmaha kale howlahooda ayaa aad u badan oo caruurta kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waa mashquul. 5 maalmood 3 o'clock 3:30 to 4 o'clock ay iskuullada loo soo xiraa. ardaygii waxa weeye muddo 6 sitimaan ayuu aad mashquul ah. waxaa loo baahan yahay sitimaankan uu ofka uu ka yahay in ilmaha ay nastaan. maxay ku nasanayaan? subax markay soo kacaan in caruurta la wado, goobo ay ku nastaan la geeyo, museumyada magaalada la tago. caruurta aan la dhiin fasax bay ku jiraan inay guriga joogaan 24 hours ee play station ay dheelaan. waxay u baahan yihiin time yar oo ay markaasi dabada lagu geeyay ay soo yara baashaalaan iyagoo habina gurigooda ay kusoo noqdaan. galabnimadii 1 saac ilaha ka dhigay in ay revision ay ku sameeyaan subjectyada loo dhigo, maadka, Englishka, science-ka, waxay doontaba ahaato in uu markaasi review uu ku sameeyo si uu markaasi uusan isku dhiganin wiilka ama gabadha. sidaas darteeda sitimaanka aan haatan galayno ee maalinta birita noo bilaabanaya dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe waa ay xiran yihiin. marka fadlan aabba haddaad tahay ama hooyo aad tahay, caruurtii aan isdhihin way nasanayaan oo faraha laga qaado. waa inay revisionadooda, homeworkyadooda inta badan marka ay sidaan oo kale caruurta ay 7 maalmood iskoolka ay ka maqan yihiin, waxaa dhacda in markay ku laabtaanba imtixaano yar oo iskuulka gudihiisa laga qaado. qaarkood ay mog ay galaan. ardayda GCSE-ga ee levelka year 6-ka waxa ay sameynayaan review ayaa loo baahan inay sameeyaan oo dib markay ugu laabtaan iskuullada aad bay muhiim u tahay in caruurtaasi
ay durbadiba ay la jaan qaadaan laakiinse haddii sitimaanka weekendiga waa u dhamaaday fridayda ay shaqada ay iskoolada ay kasoo laabteen ilaa iyo next sunday ay guryaha ay joogaan oo laga yaabo inay play station ay ku jiraan sitimaankii oo idil oo hal maalinba ilaaha ka dhiga aan caruurtii buugaagtooda la eegin oo homeworkyaa la soo siiya caruurta oo idil aan caruurta homeworkooda la ilaalinin ilmahaas birito kuwii kale ee dadka waddanka nool Asiyaanka u badan iskuulada waddankaana caruurta inta badan waxaa la isla dhigtaa Asiyaanka waa goobaha ay Soomaalida degan yihiin waxa weeye caruurta Asiyaanka timetable-kooda uu samaysan yahay oo waalidkooda inay markii hadda sida iskoolada loo xiro caruurtooda waxaa la geenayaa science museum waxaa la geenayaa museumyo badan waxaa la geenayaa London Zoo waa la soo wareejinaya caruurtii markay galabtii ay soo laabtaan caruurtii homeworkyada ayaa loo eegaya hadduu madrasa dhigtana wiilka madraso aadan lay kor hoos waa in subjectigi oo markaas uu qaadanayay review lagu sameeyo oo caruurta ay markaas ay si gaar ah looga eego arrimahaas oo dhan markaad eegto waalidka Soomaalidu waxaad moodaa in ay aad ay iskaga ignore gareeyaan oo ay dhahaan caruurta holiday bay ku jiraan waa inay baashaalaan ama intay wadaan xaafad kale geenayaan caruurta kale yees hala soo qaataan laakiin waxaa loo baahan yahay in waqtigooda la xadido in la ogaado homeworkyadooda inaad isha ku haysaan caruurta Soomaaliyeed caruurta waxa keenay in ay facooda ay ka haraan waxa weeye waalidka Soomaaliyeed waa ay ka seexdeen ma hal waalid ama la waalid inaan fiirino laakiin haddii la fiiriyo majority waalidka Soomaaliyeed marka fasaxyada la galo they don't care caruurtooda waayo caruurta waxay u baahan yihiin gacan ku hayn cunugaada ama gabadhaada intaad waqti gacanta ku hayso waaba ilaa year 7 ilaa year 8 year 8 wixii ka dambeeyay wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed indhahay furanayaan oo maxay ku furanayaan waxyaabo badan oo ka dahsoona ay caruurta fahmayaan ilmahan waxa ay la joogaan caruur kale oo waalidkooda ay u sheekeeyaan caruur kale oo waalidkooda ay waqti ay siiyaan caruur kale runtii holideeyo la geeyo caruur ayeeyo iyo abti iyo habaryar iyo kulli hal mar meel ku wada qadeeyaan anaga waxa soo dhan anaga maqan abtigi iyo adeerkii iyo hooyadii iyo walaalkeeda oo dhan waaba isna cib yahay hadda runta la isku sheego dad maanta kulli qalbiyada la iskaga wada jiraya oo wiilka hadduu dhaho caruurta wad oo walaasha maanta u geey ama walaasha ay dhahdo walaalka guriga u geey ama adeerka loo geey ama abtiga loo geeyo qalbiga laga wada jiraya maadaama qalbigii laga wada jiraya oo caruurtii si happiness aysan ehelkooda aysan ula joogi karin caruurtii waxaa dhacaysa in gurihii lagu hayo caruurtii hooyada intay maanta tareen qaadato osterkeeda ay qaadato waxaa loo baahan caruurtaas inay wado ay geyso museum geyso caruurtaas inay geyso London Zoo ay geyso magaalada aad degantaa goobaha caruurta la geeyo caruurtii magaalada la soo mar wareejiyo big band ayaa jiro maxaa la dhahay meelo badan oo magaaladan ugu yaraan 4 milyan 5 milyan 6 milyan oo qofood ayaa sanad waliba waxay u yimaadaan inay big bandkaas arkaan in caruurtaas laakiin caruurteena halka dhib haysta waxa weeye xaafadu ku dhasho Ilford aheyd ama Newham aheyd ayaa lagu dhaxaya ilaa uu maalintii jaamacad u gaar maalintii inuu furfure haddaad tagto moolalka shopping centerada ilaa eega caruurta Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed isla socda wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ee moolalka lagu wado oo fiigsan yahay waayo waa cunug sida guriga loogu dhaxaayay oo PlayStation u dheelayay cartoon ayuu noqday isagaaba cartoon cunug waxa weeye Teletubby Jisbi ilala ay caruurteena noqdeen waayo Jisbi ilala soo daawanayay cunuga markuu banaanka u soo baxo umadihii kala arko cunugu waa uu buuqsan yahay cunuga Soomaaliyeed ee moolka lagu dhaxwado inuu cararo ayaa laga baqaya caruurta Soomaaliyeed mental ahaan effect garaysay haynta guryaha ay waalidka ay xabsi aan ay ku hayaan cunugayga iyo fakanin cunugayga iyo bixin cunugayga iyo meel aadin cunugayga baaba ayaa sida loo dhahay caruurtiyo idil waxa ay noqdeen caruur mental ahaan effect garaysay xabsiga ay ku jiraan odayga Soomaaliyeed iyo habarta Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in caruurtooda ay xitaa caleen aysan u dirsanin xitaa maxaa la dhahay dukaamada hoostooda ku yaalo kuma aaminayso war caawo haddaad dhimato cunugaas soo caleen ku soo gataa oo haddaad caawo taada soo gasho oo caruurta ayaad kaga tagaysaa ma ku xisaabtanta weli
kuma xisaabsana taas ayaa imaanaysa markay geeri timaado oo kulli nafsa daa'iqatul mawt oo saf baan ku wada jirnaaye ilmahaada maxaad kaga tagtay maxaad kinsiyo kaga tagtay gurigaan Mombasa kaga dhisay gurigaan Muqdisho kaga dhisay Hargeysa guri baan kaga dhisay Kismaayo caruurtan Kismaayo wala Hargeysa wala Muqdisho uma socdaan ilmahan dhaqankooda waa u bedelmay ilmahan waxay u baahan yihiin in aad adiga maskaxdooda dhisto maxaad ku dhisaysaa ma aha bariis ma aha baasto ma aha sabaayad ilmahan waxaad ku dhisaysaa maskaxdooda inay noqdaan caruur isku filan oo tomorrow after you hor u socon kara ilmaha inaad bariis lagu daldalo oo baasto lagu daldalo oo wax lagu daldalo ma that's no Sheekh Dirir oo ka hadlay waxa uu yiri ilaaha xafida waxa uu yiri caruurtiina bara cilmiga si ay caalamkan ugu noolaadaan laakiin anaga waalidkeen waxa ilmaha u diran inaan mashmash siino inaan malawax siino inaan dangalow siino inaan bariis siino inaan baasto siino oo caloosha u buuxino kaliya no ilmeena tan keenta marka inay caruurta facooda la qabsan waayaan waxa weeye habkii korinta ayaa waxa naga ah dadu baanig ku jiraan oo cunug hadduu banaanka aado ama la soo dilaa ilmiheen waxaa la dilaa iyagoo 18 jir ah ama 16 jir wixii ka weyn waayo cunugii oo caalamka ana wax ka ogeyn ayaa cadowga gacanta u galay cunugii oo caalamka wax ka ogeyn ayuu cadowga gacanta u galay reality wiilkii oo baari ah oo guriga ku joogay hooyo ha dhaqaaqin hooyo sidan hooyo ha hadlin telefoon markuu soo dhaco wariyaa naga aamus hadduu telefoon inta loo sameeyo ama tablet la odayga u soo gad ayaa gacanta inta laga saara leeyahay hooyo halka iga fadhiiso kadibna hooyada waxaa laga yaabaa inay geedkan qabsato ama aabihii maanta oo dhan ama ubur uu ku jiro maanta oo dhan hallow walaala ii waran kan baa jira Muqdisho la galaya 1 hour la hadlaya Hargeysa la wacaya 5 hours lagu sheekaysanaya gurigii wax ka socda ma og final minute inta caruurta soo xasuusato ayaa baasto inta loogu toor isuugaan leeyahay kala khaday hooyo taas ma hooyo ba kaas ma aabba ba ubar waay maanta oo dhan shilin buraadinaya baan 2 baan 3 baan 4 baan war wanday caruurtaada intaad ubarka gaariga magaalada waad kala garanaysaa aad wado gay magaalada gay meelaha quruxda badan maalin kasta dad baad ku dejisaa caruurtaada si waqti ay markaasi ay ku soo arkaan caalamkan dahsoon oo waalidiinta Soomaalidu ay ku nool yihiin caalamka madow ee anaga aan ku noolnahay caruurteena aan ku korinay runtii cunugiyo koray ayaa la sii daynaya meel wax ka bilaabo ma garanayo baska uu ilfoor ka raaco Stratford ma tagi karo haddaad dhaad halkuu ku yaala meesha lahaay King's Cross ma garanayo ilaa ma inuu iskuulka wada mooye marka ilmaheeni anaga bahdilni yaa la dhihi cunug Soomaali baa xun ma xun 9 bilood aad soo dhashay aad uur lahayd waad soo foolatay siday ummadahan kale caruurtooda u fooshaan laakiin se la soco ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku hadiyeenayo adiga makaaga tashanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye mar waliba qofka bini aadanka haykalkiisa kor ayuu saaray laakiin qofka isaga ayaana kor isku sii qaadi kara qofkana isaga isa soo dejin kara marka waalidow wixii hore u dhacay dhacni 10 hanoo noqdaan haddaan anagana waalidkii oo hore qurbaha u soo galay og caruurta tarbiyadooda siday tahay wax naga khaldana saysan qaladkaas u sii soconin waalidka new generationka waxaan u sheegaynaa kuwii muddooyinkii dambe qaaradda Yurub ka yimid oo UK soo galay nolosha wadankan igu soo bood ma ahan igu cayaar ma ahan keeran shaqeeya 24 hours aan keer shaqeynaya kuma soconayso ubadka ka baabaaye ubaran ahay maalin kasta shaqeynaya ubadkayga ma eegayo taasi kuma shaqeynayso ubadkana waqti u baahan yahay xaaskaaga waqti u baahan tahay adiga naftigaaga waqti u baahan tahay maanta idil haddaan pound the enter dhabar xanuun diabetic blood pressure maxaa la arthritis
waad fadhiisanaysaa aabe you gone waa waxaan odayaal badan aan ku aragna meelaha kulligooda left and right loo kala socdaa waayo balansiga jirka waa u kala batay waa la cuslaaday lafii xanuuna bilowday qabow baa la taagnaa shiishaa la dhuuqaayay baar baa la fadhiyey kafeyd iyo sokoraa la isku duldalayay halwaa la cunaayay diabetiga la wada noqday waa la wada jiran yahay aaway marka caruurtii aad u dhimanaysay they don't know to you because waqtigay kuu bahnaayeen adigu waqti ma siina waqtiga kuu bahnaayeen adigu waqti ma siina maba isgaranaysa marka aabbaha wiilka gabadha isma garanayaan markaasuu biro calaacalaysa wiilkayga baa xun gabadhayda baa xun ma xuma waqtiga adigu kuu bahnaayeen ayaa cidlaysay adigana waqtiga adigu u baahneed ayaa cidla kaaga tagayaan haddaad hooyo tahay haddaad aabba tahay haddaad abti tahay haddaad adeer tahay ubadka waa idiin baahan yihiin laakiin abti ahay I don't care adeera ahay I don't care ayeeyaan ahay I don't care maxaa la abuulan baa ahay I don't care anaa dhale I don't care no everything waa kugu soo noqonaya kulli shay yarjic ilaa asli adigu waad duqoobaysaa ayagu way korayaan up you go down yaad u baahan tahay iyagii aabihii waqti siiya caruurtiisa hooyadii waqti siisa caruurteeda oo dhaxda u xiratay oo aanan keliya aysan sameynin inay qada iyo quraac casho ay siiso oo keliya aysan ubadkaasi aysan u dhalin ay dhahday wiilkayga gabadhayda diinta bar cilmiga adduun bar soo ma garan social lifeka bar si ummadaha ula dhaqmaan bar hooyooyinkaasi waa kuwa haatan ku naaloonaya ubadkii quruxda badnaa oo ay dhaleen oo ay waqtiga siiyeen yaa maanta oynaya haddii runta isku sheego hooyada oynaysa waa hooyada marka iyadana dhalinyaro ahayd dhalinyaro ka raacday ama aroos taagnaato ama meel shiisho lagu cabo taagnaato ama waqtigeeda dishay odayga haatan calaalacalayo waa kan caruurtiisa jidka kaga tagay dowladda ingiriiska ayaa biilato no dowladda ingiriiska ma biilato adiga ilaah waajib ku saaray kow dowladda ingiriiska inay wareejiso maahan aaba inaad adiga wareejisay ahayd muhiim caruurtaada waqti siisa wiilkaaga aad u sheekayso maxaad ugu sheekaynaysaa wiilkaaga waa uu qaangaaraya hooyada ma kala sheekaysan karto wiilka hooyada waxyaabaha qaarkood way u qaangaaraya haddaad wiilkaada aadan u sheegin nijaasada sida la iskaga dhooro oo ah nijaasada tan ugu fudud ay wiilasha la raba in lagu baro oo kaadida oo kugu qalasha ama korkaaga taalo inay cadaabul khabri ay leedahay aabbaha inuu wiilkiisa u ka dhaadhiciyo aabbaha inuu wiilkiisa u sheego markuu yaro qaangaaro muxuu sheegaya ninka ragga maalin kada wuu isbedelaya wuu ragoobaya marab in hadallada qaarkood halkan ka sheego waa uu qaangaaraya aabbaha waa inuu u sheega calaamadaha qaangaarka waxa looga baahan yahay hadduu qabaysku waajibo aabbaha waxaa la rabaa inuu wiilkiisa uu ku tarbiyeeyo weegi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aabbaha ugu talagalay aabbaha intuu safiina salaad qaato yidhahda aabbo salaada saana loo oga habkaas baa loo xirtaa habkaasaa loo dukadaa salaada waa la tartiibiyaa saas baa loo sujuudaa saas baa nijaasada layskaga dhaqaa hooyada waa ku ceeb waxyaabaha qaarkood uma sheegi karto sida haddaad adiga aabbaha tahay aadan gabadhaada aadan u sheegi karin waxyaabaha qaarkood marka aabbayaalow nolosha sidaad u fahanteen ma aha aan idin karbaashka ogolaada yaro xishooda shaqaha ka dhigana xaajiyadda shaqo caruurtaada ka dhigo taasaa kugu filan xaajiyadda teedaaba haysata wiilkaagay dhashay gabadhaaday dhashay way foolatay way rafaaday yurub oo maanta qof lagu haynin ubadkaaga ku haysay waxaa lagu yirinayaa soo shaqayso ubadkaaga eego ilaahna xafido ilaah awlaadana xafido ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraya culaysyada jir inuu naga dulqaado yaa rab
إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا بشبر كيسر ربنا عاف ماذا نوقارسي إلهي والدكين أنت حنون سنة حنون كذلقات أنت عافماتك قبتي له عافمات سين إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا عذاب قبر نجوب بذبادي يا رب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا وممات فتنة المسيح الدجال إلهي سبحانه وتعالى الله والد كان ونحرس اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيد دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي سبحانه وتعالى أن تكون الدعاء هلبدي أصحابي استغفارك هلبدي إلهي سبحانه وتعالى ومدي سحو وجعل يكون استغفارك بدي أري خير بدن أيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتيج جاي نبرة وحيابها سرنتين لبرة وحياب بدن قف وجهنا ذو كتبين وحاول ما أنا نعنو عبنا أردنا وحلو باي قفك الذنب كسته أو كدع إنه فكره قفك الذنب كسته أو كدع إنه فكره هبين كان عاوي أنت هذا السيحان كهر بقل مرهدنا هذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله على هذا إله سبحانه وتعالى الذنب قاعد وعفني إله سبحانه وتعالى runtii waqti yar haddii noloshaada aada siiso oo istigfaarka aada badiso wax badan ayaa noloshaada iska bedelay wardi un xasbuna allah wa nicma wakiil talada rabbi subxaanahu wa tacaala saaro caafimaadkaada ku dadaal horma u saro daawadayaal wararkeena habeenkan caawa waxaan idinkaga soo gudbinay istuudiyaheena ku yaala bariga magaalada london ee waddankani great britain anigoo saalim dhowra ayaa wararka habeenkan caawa ah daawadayaal idiin soo gudbinayay habeen waliba inta aanan wararka aan xirin asxaabi inta aanan wararka soo afjarin maxaan kusoo gabagabeeyaa peace and love peace and unity وبلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.